walaal waxaan ku soo wacay macni leeyahay badan baan hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan lacag badan laga soo qaaday tiradii macni gacanta saddexaad maraya lacagta laga qaatay marka aad leedahay gacanta saddexaad ayay maraysaa lacagtana laga qaatay maxaad ka wadaa macni marba meel baan lagu xiranaya oo kolba tuugaana qabsanaysa macni hada saamayn la hadii ma gaadin dil badan ku siya badan macni dhibaatooyin badan waa naloo geystay haddana aan xorriyadeeda haysan dadkaygeena aan macni wacan karin oo lacagtii aan markaan wacno aan naloo heli karay waa gartay marka saddexda meelood ee kala gedisan ee laydinku qabsaday ee laydinka soo furfuray yaa haysto oo jooga oo idinku qabsaday nima waxaa nagu qabsaday Suudaaneys iyo Jaabays iyo maxaa sheegay Liibiyaanka cad haye marka magaalo waxaa la baraashaad markii ugu horreysay saxna laga xawishay 8250 waana laga soo qaaday inagoo xeebtan loo wadaana la qabsaday magaalo Umaraanan dhahna lagu qabsaday 6 kumaan laga xawishay haddana waxna laga rabaa lacag $4,000 marka xageed ku xirantiin $4,000 haatan laydinkaga rabaa sabaan ku xiranay sabha waa gartay marka bartamaha dalka Liibiya aad ku xirantiin haatan waa gartay waxaa la sheegay in ay ka jirto meeshaasi hab adoonsiyo dadka lagu kala gadanayo marka adinka saddexda qaybood ee qaybo mar ay idin qabsato oo lacagta idinka qaadatay ma sidaasa mise waa ka duwan tahay may waa adoonsiga walaashay waa gartay marka koox hadda idin qabsato kooxda kalena ayaa idin geenaya marka ayagun baan ku kala iibsanay anaga hadda ninka macni soo diray markii ugu horreysay 6 kun naga xawishay taxiguna soo saaray taxiga markuu soo saaray magaalada Sabha iyo Umaraan waxa u dhaxaysa muddo 3 saac u dhaxaysa markaan 3 saac soconay waxaan ninkii taxiga wana watay keenay magaalada hadda aan joogno guriguna geeyay gurigii markuu nageeyay wuxuu sameeyay hadda markii dambe xaashku nageeyay Jeeriyan dad ay ku xariifin yihiin oo dadka lagu adoonsado ugu garaaco waa gartay markii dambe adigu ninkan aan noo keenay gurigeena nagu hadda aan ku jirno na kaansaday muddo markii adigu aad 7 saac markaan joogno ninka af carabina ma naqaano isma fahmin isaguna ma fahmin Soomaaliga ma garanayo adigu wuxuu sameeyay wuxuu qaraacay wuxuu nagu qaraacay misaas anagu dad xeeb loo wadanahay ma garanaysaa waa gartay marka xeebtan yaa idin wado markii hore meesha idin keenay dadkan iyagoon baana wato oo madan xashaga dad wax Soomaaliya kama shaqeeyaan meesha Liibiyaan iyo Jaabays nima la dhaho iyo Suudaaneys weeyaan macni Soomaalidu way jiraan kuwa mas'uuliina laakiin kuwaasi waxba ku baawar ay ku leeyihiin haweenka ma jirto hortooda macni lagu kusada noogu faraxmay waxa noo qaban karaan ma jirto marka tacadiga lidin geystay oo ii sheegaysa maxaa kamid ah hadda walaashay kufsiga horta lambar 1 ka ah jirdil gaajo sida adoonsi macni waxna loola dhaqmaa sida macni xayawaanka wax kaliya tan loogu kalaamayna waa Soomaali xayawaan ixmaar macni baan ugu dhaay markasta waa gartay marka meeqaatiin tira ahaan hadda adigu waxaan ku jirnaa 4 qof kaliya hadda meel ku xareysanahay dadkii kaadu dad waxaan markii ugu horreysay meesha laga soo dhacay waxaan ahay dad 350 Soomaaliyaan ahayn haye aw 350 Soomaalida wax dawladda hadda dadka way raadisaa waa la kala aruursaday ninba meel buu ku xidhay ma garanaysaa waa gartay marka qayb dadkii waxa helay UN ta qabatay hadda UN ta waxa naloo sheegay UN ta inay ku xareysan yihiin qaar lacaga meel looga xawisho haddana lacagay kale hadda laga haysta oo macni laga xawilanaya macni sidoo kale meel dadka badankooda ugu dhibaataysan yihiin waa gartay marka waxaad bal iiga warantaa UN tas aad hadda ka dhawaajisay maxaa ugu tagi weyseen ama aad ugu dadirsan weyseen anagu UN hadaan u teekarno waan u teekarno UN meel aan u barno ma haysano guri baan ku xidhanahay bishu laga xidhan yahay guri waxaan ku riday macni meel aan ka dhacno ma haysano awoodaan ku baxno ma haysano awoodaan ku hadalno ma haysano waalidkayga hadda lacagta naga soo bixin lahayn ma awoodaan reer faqriinaan ka dhalano dadkaygu macni lacag naga soo bixin karaya waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka afartiinan qof ma rag baa idinku jiro mise dumar baa wadatii ma hal wiil kaliya nagu jiro wax raga laasinteeda kala dumar baan nahay saasi jirta hablo waxa nagu jiraan hooyada lahayn aabana lahayn ehel macni dad qaraabo kaliya wax ka sugaya waa gartay inanka hadda nala jooga dhaawac weeyaan lug baa laga jabiyay nimankana aan haystaa qaraacay lug buu ka jabiyay meesha noo dhex fadhiya annaga macni tiibay nagu dhacday camal baan u malaynaa anagu ismaana baalin laakiin macni nafteeda tiibayna aqabna anagu ahaamisanahay maxaad hadda eheladaada iyo dadkaaga adiga aad jeclaan lahayd inaad hawada u marisood ku dhahdo maadaama dhowr jeer ugu yaraan 3 jeer ayaad ii sheegtay in laydin kala gatay oo gacmo kala gegedisan aad gasheen dhaqaale laydinka soo qaatay mar walba ehelkiina wax idin soo dirayeen hadda meel waxaad joogtaan la idinka gaari karin oo dabcan wadankii bartamihiisa ah saad ii sheegtay Liibiya maxaad hadda ehelkaaga leedahay walaal ehelkayga horta waxaan oran karo waan oranayaa macni ehelkayga waxaan leeyahay lacagta laga soo bixiyo waxaan ogaa inay awoodeen lacag maxaa sheegay inay awood macni way iga gaaray inta laga bixin karo waa laga bixiyay walaalka bay la socdo horteeda lagu diray bishii hadda 12 dhamaatay 20keedii buu dhintay hadda horteeda lagu diray waxaan ku yahay midkiis ilaa hadda meel ku macni ku sugan yahay ogeyn oo macni la dilay maxaa ka wadaa macnaha xabad ma lagu dhuftay ما لما حبض الجمهور حبض القصة دي لقول استمعني وسوي حول من يعني حياتنا لكن تردل يبصير ما حدد له قراعي أيود أنت ما كدم به هذا قف ما يدي بكرتادتك كله كل جوجا
ها waan dhiibi karaa inaan baa kugu dhiibaya waay ii dhiib assalaamu calaykum calaykum salaam walaal magacaaga igu bilow walaal magacayga Sawda Ibrahim Bayrud baa la dhahaa Sawda bal waxaad iga warantaa dhibkii tacadiga meesha idinku haysta aad ku sugan tihiin wallahi dhibkii tacadiga meesha nagu haysto de waxyaabaha inaan kaaga waramayso ayaa kamid ah maxay tolay waxa ugu xun jirdilka maxay tolay kufsiga maxay tolay yani xayaataad wallahi u qalafsan baa meesha jirta inta aad carrada iyo dalkii ka soo tagteen ilaa inta hadda aad joogtaan waa meeqa hata aniga muddo sanad iyo 6 bilood ayaan ku suganahay Liibiya oo marba xaraami dhacay oo hadba dhinac qolo ay ku wadato marba dhinac lay wataa maxay tolay hadda muddo sanad iyo 6 bilood ayaan joognaa iyadoo xeebta nala wataa say inta hor ku sheegtay ayaana la soo dhacay halkan lagu soo qolkana lagu xidhay marka wallahi walaalay xayaataad adag baan ku suganahay ilaahay naga saaray maxaad jeclaan lahayd inaad ehelkaaga ku dhahdo ehelkayga wallahi horta anigu aabay hooyatoona ma lihi qadarka Liibiya keenay laakiin ehelkayga kulli de qof walba ehel buu ka dhashay waxaan oran lahaa de inkastoo igu soo daalin oo lacag badan iga soo bixiyeen haddana waxaan oran lahaa de naf maxay tolay nool lagama quste de iga soo saaran oran lahaa meesha maxay tolay mar saddexaad haddana gargaar ii fidiya marka hadda ayaga teleefanada ayaga ayaa idin siiyey miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo maaragtay dadkiina oo lacag ay uga qaataan telefoonka kuwanaan siiyey ninkan Liibiyaanka baan siiyey oo yiri lacagaha ku dalbada noomana kala Soomaaliya talabaad message risaala ma dirna risaalada hadina lagu soo celiyo nasiib hadina lagu soo celin waa inuu nagaraaca waa tahay waa yahay ugu dambeyntii maxaad intaas ku dar lahayd wallahi waxaan ku dar lahaa horta madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo wixii wax garada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta ku soo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay Liibiya u soo tahriibin waa garta inta Liibiya ku sugan maxay tahay gargaar loo fidiyo oo maxay tahay la sameeyo sidii Liibiya looga dhameystiri lahaa dhalinyarta in gajeelasha ku buuxda ee waxaan ku caqiran habla lagu kusanay ku dhibaataysan waxaan oran lahaa maxay tahay codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee ku soo hamiyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo haba yaraatay qof kaliya aan soo gelin Liibiya adigu gobolkeed ka timid Soomaaliya anigu Burcaan ka imid Burcaan soo tahriib